Bismillahirrahmanirrahiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. Dhegeystayaal kusoo dhawaada janalka Warcadda Media waana uga hadli doonaa arrimaha dhacdooyinka siyaasadda, waxbarashada, ganacsiga, ciyaaraha iyo guud ahaanba waxyaabaha la xiriira dhacdooyinka maalinlaha. Janalkan ayaa si toos ah igala socon kartaan daawadayaal iyo dhegeystayaal meel walba aad joogtaan. Waxaan idinka codsanayaa inaad markaasi janalkan nagala socon doontaan isla markaana aad noo saartaan subscribe. Dhacdooyinka ugu horeeya toddobaadkan aan ku bilaabi doono barnaamijkeena waxa uu noqon doonaa dagaal xooggan oo maanta ka dhacay magaalada Baydhabo, caasimadda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, kaas oo socday muddo ka badan 6 saacadood oo u dhexeeyay sarkaal ka tirsan ciidamada militariga Soomaaliya ee qaybta 6aad oo lagu magacaabo Cabdiraxmaan Nishow iyo sidoo kale ciidamo ka tirsan dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Sida wararka aan ka helayno halkaasi ay sheegayaan in ciidamada Koonfur Galbeed Soomaaliya ay weerar xooggan ku qaadeen guriga sarkaalkan. War ay soo saartay dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya intuu dagaalka socday ayaa waxay ku sheegeen in ay markaasi la dagaalamayaan kooxo oo ay ugu yeereen burcad ay markaasi dhibaateynayaan shacabka ku nool xaafadda Onodka ee magaalada Baydhabo. Sarkaalkan oo isna la hadlay warbaahinta gudaha ee dalka ayaa waxa uu sheegay in gurigiisa ay soo weerareen ciidamo ka tirsan dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya walow uusan si rasmi ah u sheegin sababaha weerarka dhaliyay. Sarkaalkan ka tirsan ciidamada militariga Soomaaliya ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay waxa uu khilaaf kala dhexeeyay dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ee markaasi caasimadda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Baydhabo uu ku sugan yahay. Ilaa hadda si rasmi ah looma oga sababaha dhaliyay dagaalkan oo markaasi dhex maray ciidamada dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo sarkaalkan ka tirsan ciidamada qaybta 6aad ee militariga Soomaaliya. Waxaa jira khasaaro iskugu jira dhaawac iyo sidoo kale burbur uu soo gaaray hanti iyo guryo badan halkaasi ku yaalay walow ilaa hadda aan la xaqiijin inay markaasi ay dad ku dhinteen. Isbitaalka weyn ee gobolka Baay ee magaalada Baydhabo ayaa la dhigay dhaawacyada qaarkood oo markaasi la sheegay inay ahaayeen kuwo aad u liitay. Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa ugu dambeyn soo saaray war rasmi ah oo ay ku sheegeen inay soo afjareen kooxo ay ugu yeereen burcad dhibaateynayay shacabka, kuwaas oo ay sheegeen maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya in hadda xaaladdu ay si caadi ah jawiga ku soo laabtay, maadaama ay sheegeen halkaasi ay ka tirtireen ama ay kala wareegeen kooxihii halkaasi ay fariisinka ku lahaayeen. Lama oga ciidamada oo hogaaminayay generaalka lagu magacaabo Cabdiraxmaan Nishow halkii ay markaasi aadeen. Waxaa markaasi hakad u galay isku socodka gaadiidka iyo dadweynaha, sidoo kalena waxaa markaasi hawada laga saaray isgaarsiinta kala duwan ee magaalada Baydhabo, taasoo caqabad ay ku noqotay bulshada ku nool magaalada Baydhabo inta uu dagaalka socday. Waxaa jira xaafadaha ay dagaalada ka dhaceen in dad badan ay ka barakaceen maadaama markaasi ay xaafadahaasi ay u badan yihiin kuwa jiingadaha guryaha dadka degan ay ka samaysan yihiin. Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaana sidoo kale sheegin in markaasi dagaalkaasi wixii khasaaraha uu ka dhashay. Haddaba daawadayaal waxaa si toos ah markaasi idin soo gudbin doonaa warbixino la xiriira sababaha dhaliyay iyo sidoo kale waxyaabaha markaasi laga yaabo inay dhacaan saacadaha ama daqiiqadaha soo aadan. Waxaad markaasi si toos ah kala socon kartaan janalkeena Warcadda Media oo aan idinku soo gudbin doono wararkii ugu dambeeyay oo la xiriira dagaalka ka dhacay galabta ilaa iyo caawa gudaha magaalada Baydhabo ee caasimadda ku meel gaarka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Daawadayaal muuqaalkan intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa warbixintaas. Intaan muuqaalka kale xiga dib aan uga kulmi doono dhammaantiin waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.